يبلغ موارا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وليس دوجر فضيت باجر وهكذا قف كده كعب صدا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قصص وحجرة كشة كان يحضرين دad qabsaday oo taada ka waaweyn oo ilaahay ka fayday quraankuna xataa ka acmaal iyo cibaadaad ahaan loo geliyo ilaahay lagu caabudo laga dhigay qisada Ismaaciil iyo hooyadii markii Ibraahim kaga tagay kaabada agteeda cidna deganeed sahayduna ka dhamaatay biyina ka dhamaadeen oo wiilkii oo naas ay nuujisanayeen u haynin biyo ay siisanayeen u haynin sakaraadaya ay ka soo carartay labada Safiya Marwa dhaxdooda kal boordayso oo ilaahay waxu maqasho dad male cidna degana biyo male baad male wiilkii sakaraada iyo ilmihii yaraa bay fiirin weyday lacalla inta ay maqan tahay ama inay wax soo hesho ama uu sii nafbaxo isagoo sakaraadkii ay naftu qaadaysi qofka halkaa jooga hor marka xaalad sidee baa haysata meel uu gaaro male meesha dad ma degana cunto ma haysto biyo ma haysto wehel ma haysto ilmihii yar waa sakaraadaya qofka inteen leeg buu rajo qabaa inuu ka qaban karo meeshuu lugta la dhacayay galgalashadii biyaha zamzamka noqday halka zamzamka halkaas ka soo bilowday marka maxaa sharcigu sijideeyay Safiya Marwa orodkay u kala gudbaysay basaayigi Safiya Marwa hadda loo jeeday qofkaas meeshaas oo kale markaad marayso hadaad xasuusato sidii Ismaaciil xaaladii ku jirtay ilaahay kurbadiisa uga fayday rajo weyn bay leedahay adigana kurbadaada ilaahay inuu faydi karo